السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada. Shalay waxay ahayd maalinkii iigu xumeed noloshayda. Waxaan aaday garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport anigoo raba inaan safro magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Waxaan garoonka gudihiisa ku arkay haweeney qaylinaysa oo sheegaysa in laga xaday telefoonkeedii. Anigoo raba inaan caawiyo ayaan qayb ka noqday koox dad ah oo ku soo xoomay haweeneyda. Ha yeeshee markay aragtay telefoonkaygii ayay la soo booday. Alle telefoonkaygii waa kan uu wiilkan wato. Dadkii ayaa hal mar isoo wada eegay. Waan isku naxay. Waxaan garan waayay wax aan sameeyo. Kadib ayadoo tuuga ku qaylinayso ayay ku dhegtay kuleetigayga. Waxaana indhaha igu shubtay dharbaaxo xanuun badan oo gaduudisay wejigayga. Dadkii meesha buuxay oo rag iyo dumar badan ahaa, ragna ay u badnaayeen, ayaa iyaguna bilaabay inay igu garaacaan balse nasiib wanaag aniga oo naftu iga daba yar tahay ayaa iga soo gaaray nin boolis ah oo dadkii iga celiyay. Kadib wuxuu inagoo tacbaan iska i geeyey meel gooni ah wuxuuna i weydiiyey sida ay wax u jiraan. Waxaana anigoo ilmeynaya wejiguna i bararsan yahay u sharxay siday wax u dhaceen. Kadib wuxuu labadeenaba noo kaxeeyey xarun ay boolisku dhex leeyihiin garoonka. Booliska ayaa inta haweeneydii telefoon u dhiibay ku yiri horta wac telefoonkaada. Way wacday waxaana ka qabtay gabadheeda oo u sheegtay telefoonka inay guriga ku soo ilowday. Mar labaad ayay ilin iga soo daadatay waayo waa lay bahdilay, waa lay jirdilay, waxna layga dhigay tuug aanan ahayn. Ninkii booliska ahaa ayaa haweeneydii ku yiri raaligeli wiilka aad nabsiga ka gashay. Kadibna waxay iyadoo ilmeynaysa iga codsatay inaan cafiyo. Waxayna boorso ay garabka ku wadatay kala soo baxday jeeg bangiyeed. Waxayna ku qortay $1,000. Deetana way ii soo taagtay iyadoo ilmeynaysa. Anigoo raba inaan ka qaato ayaan gacanta taagtay. Ha yeeshee waxaan indhaha faraha ka gelshay xaaskayga agtayda jiiftay. Markaas ayaan indhaha kala qaaday. Waxaan ogaaday inaan riyoonayay oo aan jiifo sariirtayda hurdada. Ilaa hadda waxaan ka xumahay lacagtii riyada igu dhaaftay. Sheekadan ka baro inaadan qiiroon adigoo wax hubsan iyo sida xaqiiqad gudaheed farxad iyo murugo loo